gabadhan yarta oo xaafidul quraan ahayd ayadoo gubanaysa ayay dadkii xaafadu qayladeeda maqleen markii ay fiiriyeenna waxay arkeen jirkeedii oo dhan oo uu dab ku qariyay oo aan meelna ka banaanayn yacni dab kaliya oo soo ordaya ayay arkeen waa tuma gabadhaani xagee ayay ka dhacday dhacdadan goormee ayay dhacday qisadaas oo faahfaahsan ayaan rabaa inaan muuqaalkan kugula wadaago soo dhawow daawade muuqaalka like saar una sii share garee saaxiibada friendiska kula ah haddii aad nagu cusub tahayna channelka subscribe saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada la yaab kale ee aan halkan soo gelino dhacdadaani waxay ka dhacday dalka Mauritania gabadhan yarta oo lagu magacaabo Zainab Kabir da'deeduna ay 10 sano ahayd gabadhan yarta waxay dhigi jirtay malcaamad ama dugsi quraan sidaad u taqaanid waxay ahayd gabar yar oo la tarbiyeeyay waxayna aad u jeclayd xifdinta quraanka kariimka ah aabaheed Cabdalla Kabir wuxuu ahaa nin محترم gabadhiisa aad ayuu jeclaa tarbiyadeeda waa uu ku dadaalayay dugsi quraan ayayna u dhiganaysay reerkan farxad ayay ku noolaayeen noloshooduna dabiici ayay ahayd Zainab wadada ay madrasada u sii mari jirtay waxa ku yaalay guriyo laga haajiray yani guriyo madrasa ahaa jiray laakiin iska xirnaa oo aan dhowr sano la isticmaalin guriyo qaarkood ay jajaban yihiin qaarkood ay albaab la'aan yihiin mar walbana markay madrasada u sii socoto waa ay sii mari jirtay xilligaas oo ahayd 2014 sida caadiga ah hooyada iyo aabuhu gurigooda ayay joogeen ayagoo iska faraxsan subaxaas gabadhooda yarta madrasada ayay u aaday dadkii xaafadda oo iska jooga ayaa hal mar waxay maqleen cunug yar oo aad u qaylinaya dadkii oo dhan waxay ku yaaceen marka halka ay qayladu ka yeertay isla markaasna waxa dadkii ka hor imaaday Zainab oo aad u gubanaysa jirkeeda oo dhan dabku uu qariyay oo aysan hal meel ka banaanayn yani dadkii oo dhan way ka argagaxeen waxay arkeen waxaan indhaha loo dhameystiri karin dadkiina waxay u qaybsameen qof booliis waca qof ambalaas waca iyo kuwa isku daya inay gabadhan yarta oo ku soo ordayda dabka ka damiyaan hal qof oo gabadhan yarta aqoonsan karay ma jirin maxaa yeelay jirkeeda oo dhan dabka ayaa qariyay laakiin dadka qaarkood ayaa weydiiyeen kuma tahay maxaa kugu dhacay waxayna ku jawaabtay waxaan ahay Zainab Kabir maadaama dadka oo dhan ay yaqaaneen Cabdalla Kabir gurigiisa ayaa lagu yaacay xaafadda ayuu deganaa xoog ayaa albaabkiisa loo garaacay markii uu furayna waxa la dhahay gabadhaadii oo gubanaysa ayaa halkan joogta asaga iyo xaaskiisuba kabaha ayay ka soo carareen ayagoo soo kala hormaraya ayay gabadhii soo dul istaageen kadibna waxay arkeen gabadhoodii yareed ee ay madrasada u direen oo jirkeedu uu gubanayo dabku uu jirkeedoo dhan cunay intaa kadibna aabuhu wuxuu weydiiyey gabadhiisa aabe maxaa kugu dhacay maxaa sidan kuu galay waxay dhahday 3 dhalinyaro ah ayaa igu xadgudbeen kadibna dab ayay qabadsiiyeen balka waran waa gabar yar oo kitaab quraan wadatay oo dugsi quraan u socotay kadibna 3 nin oo dhalinyaro ayaa qabteen way kufsadeen kadibna dab ayay qabadsiiyeen subhanallah isla markiiba ambalaas ayaa lagu qaaday gabadhii yareed waxa la geeyay emergency-ga qaybta ICU-da ee isbitaalka laakiin intii la sii waday aan isbitaalka wali la gaarsiin ayay miyir daboolantay ma aysan dhiman laakiin way miyir daboolantay ICU-da ayaa la iska dhigay halkii ayaana lagu baxnaaninayay ilaa salaada subax laga gaarayay waagu markuu bariyay dhakhtarku wuxuu soo sheegay hadal aan fiicnayn hooyadii iyo aabihiina wuxuu ku dhacay samir allaheedan ka siiyo gabadhiina yareed waa ay geeriyootay anigu waxba kama sheegi karo adinka ayaan idin deynayaa ee bal qiyaasa sida uu noqday dareenka labadaas waalid dhakhtarkii ay ku jirtay gabadhan DNA ayuu ka qaaday wuxuuna sheegay hal qof ka badan inuu gabadhan kufsaday maadaama DNA kala duwan uu dhakhtarku arkay DNA-ga xagga noo dhig marka boolisku waxay u tageen qoyskii ay gabadhaani ka geeriyootay hooyadii iyo aabihii way u tacsiyeeyeen kadibna waxay weydiiyeen ma waxaa jiray dad ay cadaawadeedan kala dhaxayday dad ay isdagaalsanaydeen laakiin qoyskan waxay ku jawaabeen annaga xaalkeenu waa xaal ilaahay dadaan cadaawad isu hayno ama dadaan isdagaalna iska daaye xitaa hadal xun qof isma aanan dhihin intaas kadib boolisku waxay tageen halkii uu faldambiyeedku ka dhacay dadkii ka agdhawaayoo dhan ayay wareysteen laakiin waxba waa ay ka soo waayeen xilligaas waxaa dhacay banaanbaxyo dalka Mauritania oo dhan saameeyey dadka oo dhan waxay wateen hashtagyo ay ku qoran tahay bi ay dhanbin qutilat dumarku maryo gadgaduudan ayay madaxa ku soo xirteen حركة الشارع الموريتاني وأصبحت زينب رمزا لمناهض جريمة الاغتصاب فدعت هيئات المجتمع المدني إلى سن قوانين رادعة الأحزاب السياسية هي الأخرى تفاعلت مع الحادثة فأرجعتها إلى انفلات أمني تشهده مرحلة ay dhacdadaani dhacday 10 maalin laga joogo ayaa booliisku waxa la soo xiriirtay maamada ah kadibna waxay dhahday faahfaahin yar ayaan hayaa maalinkii la gubayay gabadhan yar ee Zainab Kabir waxaan joogay meel ka agdhow guryahan laga guuray aniga iyo gabar yar oo aan dhalnay waxaan halkaas ku aragnay 3 dhalinyaro oo aan la yaabay habdhaqankooda dadka dariiqaas maraya ayay fawdaynayeen dadka ayay handadayeen wajigooduna ilama wanaagsaneen oo kuwa xumaan damacsan ayay ahaayeen maray banaanbaxyadii dhamaadeen oo maalmo dhan laga joogo ayaa mid kamid ah baarayaashu wuxuu soo aaday tukaamadii goobtaas ka agdhawaa kadibna baaritaano iyo wareysiyo ayuu u soo aaday
aaday mid ka mid ah tukaamadii ayuu yimid kadibna wuxuu ku yiri qofka dukaanka iska lahaa maalinkii ay dhacdadaani dhacaysay jawigu siduu ahaa dad noocee ah ayaa wax ka iibsanayay qofkii dukaanka lahaa wuxuu yiri horta aniga customerkaygu wuu iska yar yahay dukaan yar ayaan haystaa maalinkaas dad iska kooban ayaa ii imaadeen waxaan ka xasuustaa wiil aan wejigiisana aqaano ciddiisana aan aqaano aadna aan isu naqaano wiilkaas yarkaa wuu ii yimid kadibna xabad janta ah ayuu iga iibsaday waana uu iga tegay magaciisa Camaar ayaa la yiri xaafadaas ayuu degan yahay halkaas ayuu degan yahay booliiska ayuu u tilmaamay booliisku Camaar gurigiisa ayay tageen wuxuu ahaa cunug yar oo 16 jir ah way soo qabteen waraysi ayay ku bilaabeen laakiin aad ayuu u inkiray markii hore wuxuuna yiri anu dhacdadaas waxba kama ogi maalinkaas caradaanba ma joogin adigu wuxuu u inkiray sida qof aan waxba ogeyn oo kale booliisku way soo wadeen waxay u keeneen maamadii da'da ahayd ee dhahday dhalinyaro ayaan maalinkaas ku arkay meeshaas waxay yiraahdeen cunugan wejigiisa ma taqaana waxay tiri haa waa uu ka mid yahay saddexdii ayuu ka mid yahay markaan booliisku laba cadeymood ayay haystaan waa la waday DNA ayaa lagu fiiriyay DNA-giina waa uu ka soo baxay oo dadkii gabadhan kufsaday waa uu ka mid yahay waxa la yiri marka waa ay kugu caddahay dambigan ma inkiri kartid ee sheeg dadkii kula geystay dambigan kadibna wuxuu sheegay laba nin oo saaxiibadiis ah oo lagu kala magacaabo Xasan iyo Xamse wuxuu yiri gabadhan waa aan wada kufsanay laakiin aniga janta ayay ii direen jantii markii aan u soo gadayna waa aan ka tagay inay dileen iyo inay daayeen ma aqaano labadii kalena gurigooda ayaa loogu tagay waa la soo qabtay waa kuwan saddexdoodu ayagoo wada sawiran waxba yaana warkeedin ku sii dheerayn ugu dambeyn Xasan iyo Xamse dil toogashaah ayaa lagu xukumay maadaama uu dambiguna ku cadaaday laba nin oo waaweyn ay ahaayeen cunugaana 16 sano oo kaliya ayuu jiray 12 sano oo kaliya oo xabsi ayaa lagu xukumay channelka subscribe dhax saaxiibayaal muuqaalkan si share gareeya intaan dhacdo midaan oo kala ku kulmayno sidaas iyo nabadgeliyo